Assalaamu calaykum. Maanta waynu ka yara baxaynaa xuduudkii ahaa xaqiiqada iyo soo bandhigista xogaha. Waxaanaynu soo qaadanaynaa barnaamij kaftan iyo qosol leh. Waxaynu soo qaadanaynaa sheekooyinka Robert Mugabe iyo hadallada qosol kale ee la soo dhigo page-kiisa Facebook-ga. Kamera tarjumayeen kanaalkii sahanka xoguhu sida isu bedelay, balse maanta aynu dhanka kaftanka u saarno. Hadallada qosol kale ee Robert Mugabe laga hayo waxaa ka mid ah: musaaricadu waa wax lagu qoslo, waa meel ay joogaan niman u dagaalamaya suun iyaga oo aan sidanin surwaalba. Gabadh kaa dheer haddii aad damacdo inaad dhunkato, waa sidii adiga oo doonaya inaad tuushka biyo ka cabto. Waa necbahay wiilasha aan baabuurka wadan, waxaa sidaas tiri gabadh aan xataa baaskeel wadan. Afrika waa meesha qura ee gabadh dhar ka soo ammaanaysatay saaxiibadeed ay la kulmayso wiil qol ka ammaanaystay saaxiibkii. Waxaan ogaaday in Afrika ay ka wanaagsan tahay Yurub markaan ka waayay gidaar aan kaadi isla taagaba. haddaad aragto lamaane Afrikaana oo xaafadda horteeda ku leedhsanaya, ha u marayn jacayl ee korontadii ayaa ka tagtay. haddii aad aragto nin xaaskiisa marka uu gaadhiga joojiyo inta uu soo dego daaqadda gaadhiga ka furaya, kama aha jacayl ama gaadhiga ayaa cusub ama gabadha ayaa cusub. marka ay gabadhu dhegaysato qalbigeeda in ka badan inta ay dhegaysanayso caloosheeda, waxay awoodaysaa in kuwa baagamuuddo ah oo aan shilin haysan ay xidhiidh la samayso. haddii la xidho meheradaha lagu gado maykaabka, carruur badan ayaan hooyooyinkooda aqoonsadeen. inaad gabdho badan xidhiidh la samaysaa waa qaab aad ku dawaaqinayso oo ku khalkhalinayso cadowgaaga si aanay gaar ugu bartilmaameedsan midhaada yar ee gacalisadaada ah, balse dumarku siyaasaddaas iyo istiraatiijiyaddaas ma fahmayaan. aroosku waa meel ay isugu yimaadaan dad badan oo laba ka mid ahina ay ka fekerayaan galmo, inta soo hadhayna cunto. dumarku waxay khiyaamaan militariga jiidda jooga ee bambooyinka iyo hubka culus sita. sidee ayaad ugu maraysay adiga oo laabtoob sita inaanay ku khiyaami karin? musuqmaasuqu waxa uu ka bilaabmaa marka aad ka qaaddo ilmahaaga lacagta ay siiyaan dadka idinsoo booqday, adiga oo ka sasabanaya. wiilka aad la sheekaysato markaaad barayso saaxiibadaha waa sidii adiga oo waraabe tusaya dhowr nooc oo kala duwan oo hilib ah oo mar liiba isagu wada cunayaa hilibka. waalidka Afrikaanku waa kuwa qura ee inta ay ku dhangadeeyaan kadibna ku weydiinaya sababta aad la ooyeyso. walaashay waxaa tahay 35 jir, haddana wiilasha kula soo hadla ayaad ku leedahay xagaad ka soo heshay nambarkayga eedu iska sug calafkaaga. markaad xidhiidhka khaaska iyo qofka aad la sheekaysato aad ku faafiso baraha bulshada, dadku waxay sugayaan xilliga aad kala hadhaysaan in ka badan inta ay sugayaan imaanshaha iyo soo laabashada Nabi Ciise. aynu dumarka u sheegno xaqiiqade, marka la leeyahay nin kasta oo guul gaadhaba gabadh ayaa ka dambaysa, ma aha ta uu la sheekaysto ee waa hooyadii. haddii aan soo dhigo bartayda inaan joogo Dubai oo aad kadib igu aragto magaalada aniga oo kula jooga, iska aamul, labadeenuba Dubai ayaynu wada joognaaye. wiilasha Afrikaanku jacaylka waxba kama yaqaanaan. mid bay xaaskiisu barkin ku soo tuuraysaa si uu isna ugu soo tuuro barkin, markaasuu mindi ku eryanayaa. Afrika waa meesha qura ee wiil san weyni uu gabadh ku odhanayo la'aanta ma neefsan karo. haddii aad fal xun tahay micnaheedu ma aha in aad qolkaaga isku soo xidho soo warwareeg magaalada. laga yaabaa inaad ka soo dhex muuqato filimada khaakha iyo faambaayirka ee cabsida leh. walaashayay, halkaad xidhiidh kala samayn lahayd nin kirada guriga kaa bixiya, ka waran haddaad toos ula sheekaysato ka guriga iskale. haddii aad xidhiidh la samayso wiil iscaddeeya, waa wax laga yaqyaqsoodo oo marka aad uur u qaaddo halkii aad ka sugaysay inaad ilmo yaroo Ronaldo u eeg u dhasho ayaad xabad yaroo Pogba u eeg u dhalaysaa. marka aad tahay qof buuran oo sabool ah, waa xaalad aad u adag oo istilka ka xun. waad gaajoonaysaa, dadkuna ma aaminayaan inaad gaajoonayso oo dhalasacleennimadaada ayaa hodaysa. dadka kubadda daawada waa kuwo qosol leh. waxaad maqlaysaa mid la ciyaartooy cusub ayaanu soo siisanay intaas oo milyan oo lacag ah, isaga oo wuxuu ku casheeyaba haysan. haddii aroos walba aad taagan tahay haddana aadan weli helin lamaanahaagii, waxba ma dhaantid hoolka arooska lagu dhiganayo. eygaygu waa mid bilaa faa'iido ah. shalay ey kalaan eryaday aniga iyo isagaba. mid ka mid a faa'iidooyinka ugu badan ee laga dheefo la kulanka saaxiibada aad in badan kala maqnaydeen waa in dharkaagii duugga ahaa ay u ekaanayaan cusayb, ileen hore kuugumay arki jirine. markii aad yareed marka lagu weydiiyo mustaqbalka maxaad doonaysaa inaad noqoto, waxaad odhan jirtay waxaan doonayaa inaan noqdo baylood diyaaradaha duuliya. iminkana waxaa qura ee diyaarad la xidhiidha ee aad samaysaa
waa inaad moobilkaaga flight mode geliso oo diyaarad ku xidho. mar la weydiiyey Robert Mugabe sidee ayaynu iskuuladeenna uga dhignaa kuwo nadiif ah, waxa uu ku jawaabay inaynu xaafadaheenna iska joogno. gabadh waliba waxay leedahay 2 wiil oo ay la sheekaysato, mid waa ka ay jeceshahay, midna waa kaashiyeerkeeda ama ATM-keeda ay lacagta ka shubato. labadaas ka uu yahayna nin kastaaba wuu garanayaa. gabadha aad u dirto $3 ee haddana isla markiiba miskoolka kugu soo gasha, guurso waa gabadh taqaana dhaqaalaynta lacagta. dhibaatooyinka Afrikaanka waxaa ka mid ah haddii la yidhaahdo qofna dibadda uma soo bixi karo oo waa bandow, qof waliba waxa uu soo baxaya balse uu soo eego inay cidi soo baxday. haddii aad aragto inay dhibaato haysato gabadh caawi, waxaa hubaala in marka xigta ee ay dhibaato qabsato ay ku soo xasuusanayso. waan iska daayay daawashada aflaamta Afrikaanku metelaan markaan arkay gabadh ninkeeda ugu daraysa raashinka ay u karinayso sun, kadibna dhadhaminaysa bal inuu sun leeyahay iyo in kale. inaad fool xumaato dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah haddii mid qurux badan oo kula jooga ay dhuuso ka baxsato, dadka oo dhammi adiga ayay dhankaaga soo eegayaan. haddii aad guursato gabadh saaxiib nagala ah Facebook, dhammaantayo waxaad noo tahay seedi. gabadha tidhaahda ubadkayga ayaan ka jeclahay ninkaygu been ayay sheegaysaa, ay sababtu tahay ubadkeeda way kaga tegi kartaa gabadha jaarkeeda oo maanta oo dhan way ka maqnaan kartaa, balse ninkeeda 1 daqiiqo kagama tegi karto gabadha jaarkeeda. dalalka faqiirka ahi waa kuwa heesahooda qaranku ay ugu dhaadheer yihiin, ay sababtu tahay waxay ku sharaxayaan dhibaatooyinka haysta oo dhan. wiil Afrikaana marka ay gabadh istiraahdo la sheekayso, waxay ogaanaysaa inay yihiin sida madaxweynayaasha Afrika oo kale, uu mid waliba uu ka xun yahay kii ka sii horreeyey. waan jeclahay ninka inay isu ekaadaan suunkiisa iyo kabihiisu, waxa sidaas tidhi gabadh aanay isu ekayn wejigeeda iyo jidhkeeda intiisa kale. haddii gabadhii aad hore u sheekaysan jirteen ee aad kala tagteen ay kugu soo shubto moobilka ku shubasho, ha la yaabin, waa faa'iidada howlgabnimadaada. gabdhuhu waxay jecel yihiin niman shaqeeya oo hanti xoogsada, haddana inta uu shaqada ku maqan yahay ayay ka daba baxaan oo in laga ag fogaado ma doonayaan. dhalinyarada dambe ma yaqaanaan siyaasadda lagu maamulo dhowr dumara oo kala duwan. aabbayaashiin marka ay xidhiidh sameeyaan, ubadkoodu waxay isugu iman jireen aaskooda. waxyaabaha aan guurka ku nacay waxaa ka mid ah markaad carruur dhasho ayaa adiga oo hurdo saqda dhexe lagu kicinayaa oo lagu odhanayaa mas ayaa guriga soo galay ee ka coodil, adiga oo xataa jiirka ka baqa. haddii aad aroska saaxiibkaa tagto, ha tegin adiga oo labis fiican xidhan oo ifaya, maaha xilligii aad ifi lahayd oo nin kale ayaa ifaya. dumarka quruxda badani waa sida khudaar qaydhin ama ceedhin, adigu waxaad sugaysaa inta ay bislaanayso halka mid kale milix ku darsanayo oo qaydhinkeeda ku cunayo. waalidka Afrikaanku waa kuwa keliya ee ku odhanaya qaad weelkaan cuntada ku cunay oo gee kitchenka, haddana ku daba soconaya si ay uga soo faraxashaan kijada. shaaha qofka sida ugu degdega badan u laacaa waa ka aan lacagta ka bixin. halka waxaa ku jira khamriga, balse Soomaali ahaan habdhaqankeena marka loo eego shaaha halka inoogu jira. Afrikaanku waa ummadda ay gabdhihii dhaadheeraa doonayaan wiilal dhaadheer, gabdhihii gaagaabnaana doonayaan wiilal dhaadheer. haddaba waa iga su'aale, yaa u maqan wiilashii gaagaabnaa? hablaha gaagaaban ee iyaga oo keliyaha ishaya sawirrada gelaya, waxaan leeyahay joojiya. markaan idin arko waxaan idinku soo xasuustaa bakeeriga shaaha ee dhegta leh. Afrika waa meesha qura ee sidaad shaqo u raadinayso ay shaqo raadintu noqonayso shaqadaada. gabadha tidhaahda waan jeclahay wiilasha gadh kale, waxa aan leeyahay aaway horta suuniyahaagii iyo xirribahaagii. qof dhiirigeliye ah haddii aad weydiiso walaal sidee ayaan ku guulaystaa, waxa uu ku odhanayaa ugu horrayn naftaada hel. talo walaal xaggaan ku dhuumanayay. markay Afrikaanku lacag yeeshaan, waxay caafimaad u aadaan Jarmalka, waxay lacagta dhigtaan Switzerland, waxay u dalxiis tagaan Canada, waxay ka soo adeegtaan Dubai. haddii ay dhintaanna waxay doonayaan in lagu aaso dhulkoodii hooyo. Afrika ma qubuuraa markaa? qof ayaa inta uu tahriibo maalmo kadib ku soo wacaya oo ku odhanaya ka warran dalkii iyo degaankii, oo kaalay ma anigaa markii horeba kaa kaxeeyey dalkaaga. Afrika marka aad joogto uma baahnid alam ama qaylada saacaddu inay ku kiciso, mushkiladahaaga ayaa ku toosinaya oo baraarujin kuugu filane. Afrika habeen kasta haddii gurigaaga tuugu soo dhaco, jaarkaagu ogaan maayaan. hal habeen haddii aad hal gabadh la timaadana, jaarka oo dhan ayaa laga wada ogaanayaa. walaalkayow, ha guursan gabadh carmala oo ubad wadata
lama arag ciyaar gool iyo eber ku bilaabanta Afrika waa meesha keliya inta aad wax barato oo aad qalin jabiso aad bilaa shaqada ahaanayso ilaa aad ka ilaawayso kooraskii aad baratayba gabadh yahay wiilkaad la sheekaysataa waxa uu haystaa mobil Huawei charger Zamzam iyo earphone Nokia markaasaad u malaynaysaa inaanu ku khiyaamayn waxaan ku nacay filimada Afrikaanka waxay ku soo qorayaan shaashada 5 iyo 30 sano ayaa ka soo wareegtay haddana eyga ku xidhan banaanku intii ayuu la eg yahay oo halkii ayuu ku xidhan yahay mar la weydiiyay goormaad macasalaameynaysaa shacabka Zimbabwe iyadoo looga jeedo goormaad xilka ka degaysaa waxa uu ku jawaabay waxa gayaadaya shacabka Zimbabwe inaas aynu kaga baxaynaa kaftanka iyo qosolka Robert Mugabe waxana uu ahaa kaftan kooban oo maanta aynu ku soo dhex tuurnay balse ka tarjumi maayeen inuu mustaqbalkeena dambe sidan sii ahaanayno page-kiisa Facebook linkigiisana description-ka waaniga idin dhigay wassalaamu calaykum